salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkanina waa taar t v daawade ku soo dhowaada barnaamijkeennii waxweydiin ogaal ka sheegne. qodobada war iyo wacalan idinka hayna carreedeg waxaa ugu dooroon guddoomiyaha urur siyaasadeedka horseed oo dhirbaaxo kulul ku dhuftay beelaha garxajis ina bayden oo soo jeediya in beleda ka taagan bariga dhexe looga dambeeyo qatar iyo qaahira. iiraan oo dusha loo saaray markab dagaal oo gamuun lala eegtay oo shii habar jeclo oo deg deg uga fal celinaysa baabuur laga magankafacay in afmadoobe. macawisleyda beesha bariga burco oo aan kala go'ayn inta ka dhexle 5 gobol. ruushka oo waxoogay markaraysa kula soo diiday soomaaliya. budhcadbade doon ka jujuubtay xeebaha puntland. henry kissinger oo lagu soo warramay ciidanka ruushka oo baduugaha ka dhigay gobolka donesk iyo weliba ingiriiska oo minawar dagaal u soo diray xeebaha badda cas. wararkaasi iyo warar kaloo dheeraad ayaan idin haynaaye ku soo dhowaada barnaamijkeenna. goolmoon tahay barashada diinta garaadkaaga oo qabatiba qur-aanka luuqda suuradaha afka carabiga barashada axaadiista rasuulka iyo dhammaan cilmiga diinta ka baro adigoo baradaada jooga alxaramayn oo ku fududayn doontaa dal iyo dibadba barashada diinteenna suuban. kala xidhiidh wixii faahfaahin aleynada shaashadda kaaga muuqda. alxaramayn qur'aan islaamig online. wararka lagu helayo tuxumbaadhka ee ka soo baxaya guxushaaga aanseedi u dhanaanayn ee ina bayden ayaa sheegaya in duqaasi uu soo jeediyey in arrintaas surya cururuqo gebi ahaanba loo daayo ama faraha looga qaado xukuumadaha ka tanax weyeeya ceelasha qatar iyo qaahira. wuxuu tilmaamay in qatar iyo masaaridu ay yihiin kuwa keliya ee simi kara ee sadgoyn kara ee sarjari kara ee saameeli kara waxa ay labada dhinac tabanayaan. wuxuu sheegay inay labada dal uga firfircoon yihiin oo uga faradhuudhuban yihiin oo uga falkiroon yihiin oo uga faambiyi og yihiin sida qura ay labada dhinacba ku qancaan. wuxuu yidhi dalalkaasi way inaga madhac yaqaanaan oo way inaga milga yaqaanaan oo way inaga midha yaqaanaan oo way inaga madal yaqaanaan oo way inaga magac yaqaanaan oo way inaga mooro og yihiin labada col ee indhawaalaba isku ahaadka iyo eegatada. wuxuu sheegay inay dhinacooda ku dadaali doonaan inay kordhiyaan muddada xabad joojinta si loo midhtiro ama loo dhammeeyo ama loo axaladuugo ama loo xeebto dhammaystirka xidhanayaasha labada dhinaca ee haatan jeelasha ku amuugan iyo weliba sidii aanay mar dambe u iman lahayn dhimasho intan ka badan iyo mashaqo mar kale la kumbado. duqaan tiixaynaynin ayaa tilmaamay in sidii ay reeraha washington markii hore wuxuu arkayeen uu haatan arrinku ka duwan yahay islamarkaana ay ka odayeyn doonaan sidoo kalena ay isu muqayn doonaan oo isu soo jiidi doonaan oo isu soo dabaalayaan oo isu soo dumayaan oo isu soo duwayaan oo isu soo suudaalinayaan oo isu soo sakalayaan oo isu soo sibqinayaan labada geesood ee guyaasha badan wanka iyo waraabaha isku ahaa. ina bayden ayaa ku booriyey qatar iyo qaahira in hawsha iyaga loo saanyaday oo loo qaybshay oo looga dambayn doono oo lagu wayiyi doono oo ay keliya wixii iyaga ka calladh weynaada ama ka tafdheeraada ama culays ku ah ee ku yimaada ay la miskaansan doonaan. wuxuu tilmaamay in beesha carre edeg iyo dadyooga isu tegay ee qaramada midoobey la yidhi kuwaasoo aan markii hore cidina waxba u dirsan jirin. ugu dambayntii ina bayden ayaa ku wargeliyey dooxa iyo qaahira in iyaga looga fadhiyo tabtii iyo xeeladdii ay labada dhinac ku walaalaysiin lahaayeen ama ay igu kala qaydi lahaayeen nabadgelyo waarta gaar ahaana reerahan inta badan isku dudaroganayay. isaguna guddoomiyaha urur siyaasadeedka horseed cabdilaahi iimaan dareewal oo la hadlay dadka wararka hadowsada ayaa sheegay inaanay doow ahayn in xisbiyada qaar ku doodaan waxaanu soo celin doonaa bariga gobolka sool iyo gebi ahaanba maamulka cantatabka ee halkaasi laga dhisay gaar ahaana marka aanu wambarka dalka somalilan ku fadhiisanno. wuxuu sheegay in arrintaasi ay tahay yaab fajac ama kaag u qaadan waa dhabannahays iyo wax naga qarsoona oo haatan caddaaday. cabdilaahi iimaan dareewal ayaa bulshada reer somalilan weydiiyey marka hore iyaga ayaa eryey ma ballan bay lahaayeen ma wax gaar ah ayay isku ogaayeen ma heshiisyo ayay wada galeen. wuxuu sheegay cabdilaahi iimaan dareewal inay taasi muujinayso inaynaan meel u wada socon ama aynaan isku ujeeddo ahayn sidoo kalena aanay dan inaga dhaxaynin. wuxuu tilmaamay guddoomiyuhu inaanu garanaynin arrinta keenaysa inay dad gaarahi wax goostaan ama ay wax cululubtaan sidoo kalena ay wax isu geystaan iyada oo ay dalka ka jirto dowlad maamul iyo mareeg dadka ah iyo dalkaba hogaamintooda loo xil saaray ama lagu ogaa. wuxuu sheegay in haddii ay arrintu tahay in marka ay guulaystaan xisbiyadaasi ay dalka ku soo waabinayaan kuwa wanaagsan ee ay sheegayaan uu fadhiyi doono madaxweynahan xun ee iminka jooga.
wuxuu sheegay inaanay iyagu dooran karin waxa ay isu geysteen ee ah inay dalka ka dhisaan dowlad toosan oo dalka ku habboon oo dheelitiran oo bulshada ku quman oo aan qalooc lahayn oo qabyo lahayn oo qordoofooyin lahayn oo ay faraha ku samaysteen oo ay si ugu tala galeen qaar ka mid ah xisbiyada dalka ka jira kuwaas oo uu malaha ula jeedo xisbiyada waddani iyo wuxuu caga ku jiito cabdilaahi imaan dareewal oo hadalkiisa sii dalqaminaya ayaa tibaaxay inaanayna qabanin in xisbiyadaasi ay gebi ahaanba ka soo hor jeestaan kala hagista dalka iyo kala dambayntiisa islamarkaana ay qaateen waxay soo gooyeen odayaal beeleed iyagoo guntooda iyo gororkoodu yahay inay ciijiyaan qaar ka mid a beelaha somalilan qaar kalena dusha u ritaan oo ay go'aamadooda meel mariyaan oo oggolaadaan wuxuu sheegay inay duulkaasi weliba faraha la galeen falaal guracan oo dad lagu laayay oo buuro lagu galay oo dhiig lagu qubay oo xinjiro lagu burburiyey oo foolxumo lagu maydhay isla jeerkaasna ay haatan la soo taagan yihiin annagaa wax xumaynay annagaa waxaas qalloocinay annagaa waxaa qasnay annagaa waxaas qarribnay annagaa waxaas qulubaagedinay annagaa waxaas qalaamaarognay oo aan lala gabanaynin oo aan lala dhuumanaynin oo lala shiixaynin oo aan laga mastuuraynin oo aan la iska gundhinaynin oo aan la iska barbarinaynin oo aan laga sikanaynin oo laga durkaynin oo aan indhahaba la ysaga leexinaynin oo dhagaha la ysaga duwaynin sidoo kalena midnimadii qoysnimadii gacalnimadii xigaalnimadii iyo xididnimadiiba lagu ilaaway cabdilaahi darawal ayaa hadalkiisa ku soo iidleeyey in haddii aan si loo wada gurguuran ay tegi doonto in runta la ysku bayido oo la ysula badheedho oo si cad la ysu sheego isla jeerkaas aan dib la ysu xaman ee runta la ysugu xariiro weli halkaad nagala socotaan waa taar t v iyo weli waxaa ka socda gurmadka garmaamada guclaha gaashaandhigga isugeynta soo qaadista rarista furista horseetaga isu ururinta qormadayashada rabadaynfurka abalin raadiska degalyaahinta jabadgoobista isku dhigidda iyo kala dhigidda kala dheega iyo kala dhambalka isku dhexgelinta iyo isku dhaabka isku dhidibka iyo isku adkaynta soo dhoweynta iyo bogaadinta ciidamo beeleedka habar jeclo ee tirabeelka ee ka imanaya gobollada sool sanaag saaxil togdheer saraar buuhoodle iyo weliba dowlad deegaanka soomaalida waxaa 24 goor sheegood ee ugu dambeeyey ku qulqulayay jiidaha hore ee dagaalku ka oogan yahay ee galbeedka gobolka sool boqolaal iyo kumanaan ciidamo beelaadkaasi ka mid ah kuwaas oo u kala socday gubniyo gaasas guutooyin camaaryeley iyo cagamadow oodka qaad ah kuwaasoo watay gaadiidka kala duwan ee dagaalka hub iyo saanad ciidan oo aad u taag iyo tukur badan ciidamadan ayaa toos u abaarayay deegaanada qorlugud maskax buqle faraslayaal meygaagle iyo buqdharkayn halkaasoo ay isku hor fadhiyaan ciidamada madaniga ee beelaha habarjalo iyo kuwa duulka huwan la yidhi ee beelaha daarood kuwaasoo ay dagaallo culus si dhowaan deegaanada isku dhex mareen iyana waxaa koox dabley ama gablaarata ah iyo afduub ugu geysteen deegaanka inaaf madoobe gaadhi kuwa dheereeya oo jaadkiisu yahay nooca loo yaqaano leyli calaawi kaasi oo ku socday ceelka ceerigaaba iyo wixii ka shisheeya waxaa la tibaaxaya inay gaadhigan dhexda ka leesadeen koox dhallinyaraha kuwaasoo ku gaadhna armi jaabajaaba iyo qorqor rasaasa waxaa la sheegayaa inay gaadhigaasi ka dejiyeen dadkii saarnaa iyo xamaamtoodiiba wararku waxay tibaaxayaan inay gaadhigaas kula tooseen ama kula tibadeen sida tan iyo deegaanka qorlugood halkaasoo ay gabalaaxaan ciidan beeleedada ugu taagtaroon beelaha habarjeclo waxaa laga dheehanayay baraha bulshada soomaaliyeed gaar ahaana geligii dambe ee maanta jaantuska gaadhigaasi oo ay dadku marba dhinac u tooctoocinayaan islamarkaana dhex meeraysanaya meelaha ay bulshadu ka qaraadubto waxaa muuqanayay gaadhigaasi oo gebi ahaanba kurka laga gooyey oo loo diyaariyey in la saaro qoryaha dorandooriga u dhaca arrintan ayaa dadweynaha ku abuurtay cadho iyo dhiri fara badan iyo inay gebi ahaanba bulshadu ka weyraxdo waxa ay faleen duulkan aan cidna ka iidaada haysan iyagoo arrintaasi u arkaya inay tahay meelka dhaca qadaf qardoof aqoonsi qoomama iyo wixii raaca dadka ayaa sheegayay inaanay habboonayn in bulshada la kala faquuqo oo la kala takooro oo colaad la isu geliyo oo xumaan la kala dhex dhigo oo dad gacal ah ama qoys ah amaba xigaal ah nacdiir la isugu beero sida la sheegay gaadhigan ayaa waxaa dambaabi jiray beesha warsangeley gaar ahaana oosha ugaaslebe oo ay isku olog yihiin ama ay isku daaban yihiin beelweynta warsangeley wararka haddana soo gaadhaya ayaa sheegaya inay beelaha habarjeclo ka howlgeli doonaan sidii ay gaadhigaasi u magdhabi lahaayeen islamarkaana ay uga bixin lahaayeen raalligelin qaboojin dhaahin ilowsiis iyo garowshiyo waxaa la sheegayaa in sida ugu degdega badan loola xidhiidhi doono ciddii lahayd gaadhigaasi isla jeerkaasna lagala hadli doono in gaadhigaasi ama midhigiisa dhowaan gacantooda lagu soo celiyo intaa warranay waxaanu ku darnay ma ogin wax weydiin ogaal ka sheegnay waa maxamed aadan dirtan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo nooli kulante ogeysiis waxaa la ogeysiinayaa bulshaweynta soomaaliyeed ciddii u baahan in waalidkood oo dhintay ama sariiryaal ah oo aan iman karaynin xaramka in looga soo gudaayo acmaasha fadliga badan ee cumrada
waxaa ka soo gudaya culimo ku sugan magaalada barakaysan ee Maka al-Mukarrama. inta lagu guda jiro ka gudista acmaasha cumrada ee waalidka waxaa lagu soo dirayaa muuqaalo ku saabsan intii lagu guda jiray cumrada. haddaba kala xidhiidh lambarka WhatsApp-ka ee shaashada kaaga muuqda.